madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in si rasmi ah u furo shirka hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee magaalada Garowe caasimadda Puntland. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku wajahan magaalada Garowe halkaas oo ka daafuri doono shirkan oo looga hadlayo arrimaha la xiriira khilaafaadka xilligan ka dhex jira dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada. Ila xogogaal ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda uu goor dambe oo xalay ah dhinacyada ku sugan magaalada Garowe uu ka aqbalay in uu tago magaalada Garowe isla markaana shirkaas uu daafuro. waxaana qorshuhu markii hore uu ahaa in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xubno wasiir ah ay shirkaas hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay kala qayb galaan. qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa aad looga dareemaya magaalada Garowe caasimadda Puntland, halkaas oo heegan la geliyay ciidamada ammaanka Puntland isla markaana boorarka madaxweynaha la soo dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada Garowe. shacabka magaalada Garowe ayaa maanta safaf dhaadheer geli doona garoonka diyaaradaha iyo inta u dhaxaysa madaxtooyada halkaas oo ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda. ra'iisul wasaare Khayre ayaa dhinaca kale arrin la yaab la ka dhigay magaalada Garowe. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo muran uu kala dhaxayo hogaamiyaasha maamul goboleedyada isla markaana la aaminsan yahay inuu ka dambeeyo duufaanta siyaasadeed ee dowlad goboleedyada gilgishay ayaa waxa uu ka degay magaalada Garowe asaga oo aan wadanin wax ciidan ah marka laga reebo tiro yar oo staff ah. hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa filayay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu magaalada Garowe la tagi doono ciidamo aad u fara badan kuwaas oo diyaarado lagu geeyo. ra'iisul wasaaraha ayaa kalsooni u muujiyay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee ciidamada wata, waxa uuna magaalada Garowe uu ku dhex lugeeyay asaga oo uu feer socdo madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dini. arrintan ayaa u muuqata in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu meesha ka saaray arrimihii la xiriiray shakigii badnaa ee ka jiray dhinaca maamul goboleedyada. horey ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa diyaarad ciidamo ah waxa uu iskaga hormariyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo uu kulamo kula qaadanayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. waxaana la filayay si taa la mid ah in magaalada Garowe ugu yaraan hal diyaarad oo ciidan ah uu iskaga hormariyo. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxaa kulamo caadi ah la qaatay mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada, siyaasiyiin ka tirsan deegaanada Puntland oo ay ka wada hadleen arrimo la xiriira sidii loo xoojin lahaa xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe. qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa wata ciidamo gaar ah kuwaas oo diyaarad lagu keenay, waxaana tillaabada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu qaaday ay noqonaysaa cashar ay wax ka bartaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada. dowladda Turkiga ayaa kala ceyrisay dad u dabaaldegayay 28 sano guuradii ka soo wareegatay gorisku taaga Somaliland. dowladda Turkiga ayaa joojisay xaflad loogu dabaaldegayay 28 sano guuradii ka soo wareegatay markii Somaliland ay ku dhawaaqday inay tahay dal xor ah isla markaana ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. war qoraal oo ka soo baxay dowladda Turkiga ayaa lagu mamnuucay dhaqdhaqaaqyada lagu taageerayo Somaliland iyo goonisku taageeda ee lagu qabto magaalooyinka kala duwan ee dalka Turkiga, iyada oo loo sheegay dadka ka soo jeeda deegaanada Somaliland in aynan wax xus ah aynan qaban karin marka la gaaro 18 May. magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ayaa waxaa ka socotay xaflad ay iskugu yimaadeen jaaliyadda Somaliland ee wadanka Turkiga, arday iyo sidoo kale iyo xubno ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ee Somaliland, waxaana halkaas ay ku lahaayeen xaflad ay ku maamuusayeen 18 May. xafladda oo socotay ayaa waxaa wararku tilmaamayaan in la joojiyay xuska jaaliyadda Somaliland ee dalka dibadiisa ay dhigaan ee ku aadan 18 May ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay oo dawladda ay hor istaagto. dalka Turkiga ayaa Soomaaliya oo aqoonsan hal mid, waxayna ka soo horjeedaan in la qabto kulamo lagu kala qaybinayo Soomaaliya. qaar badan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha xafladdan iyo dadkii loo soo diyaariyay ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin tillaabada ay qaaday dowladda Turkiga oo ku aadan in la joojiyay munaasabadii ay doonayaan inay ku muujiyaan 18 May oo ku aadan markii Somaliland ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. dhinaca kale dadku waxa ay ku eedeeyeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay ku fashilantay arrimaha dibadda iyo inay dalalka caalamka ay ka dhaadhiciso in xafladaas lagu qabto wadamadooda. Turkiga ayaa saaxiib dhow la ah Soomaaliya, waxaana ka caawiyaa dhinacyo badan. dhinaca kale dowladda Turkigu waxa ay doonaysaa inay xoojiso wada hadallo la iskugu soo dhaweynayo dhinacyada Soomaaliya iyo Somaliland. amarro ay soo rogtay al-shabaab ayaa ka dhaqan galay magaalada Muqdisho, sida ay baahisay warbaahinta magaalada Muqdisho qaarkood. waxaa magaalada Muqdisho ka hirgalay amarro al-shabaab ay ku soo rogtay xarumaha ganacsi ee waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo amarrada lagu soo rogay in muddo ay soo jiitamayeen, balse xilligan waxaa ugu dambeyntii wararku sheegayaan inay ka hirgaleen amarradaasi caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
amarada al-shabaab ay ku soo rogtay xarumaha ganacsi ee ka furan magaalada muqdisho ayaa ah in laga furo kaamirada CCTV ee ku xiran xarumaha ganacsi wadooyinka iyo meelo kale goobaha al-shabaab ay ku amreen in ay ka furaan kaamirada CCTV-ga ayaa waxa wararku tilmaamayaan in inta badan ay ku yaalaan wadooyinka ay ku bidan yihiin madaxda dawladda federaalka kaamirooyinkan waxa qayb ay ka qaataan xaqiijinta ammaanka iyo sidoo kale in dabagal lagu sameeyo shilalka dhaca ama haddii fal dambiyeed uu ka dhaco wadooyinka muhiimka iyo meelaha u dhow goobaha ganacsi ee kaamirooyinkaasi ay ku xiran yihiin oo dib looga tixraaco muuqaalada ay duubeen waxaa la xaqiijiyey in al-shabaab ay amaradan ku soo rogeen hoteelo bangiyo carwooyin iyo goobo ganacsi oo kale oo ay sheegeen in laga furo dhammaan wixii kaamirooyin oo ku xiran al-shabaab ayaa u arka kaamirooyinkan in ay yihiin kuwa ugu badan ee fashiliya xubnaha ka tirsan ee weerarada ka fuliya magaalada muqdisho laamaha ammaanka Soomaaliya ayayna ku eedeeyaan in inta badan ay kaamirooyinkaasi dib u raacaan sida daraadeed ganacsatada ayaa waxa ay ku amreen in ay furaan wixii kaamirooyin ah oo ku xiran goobahooda ganacsi gudoomiyaha golaha shacabka iyo Professor Jawaari ayaa isku raacay arrin liddi ku noqon karta dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan ay shir gudoominayeen gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sheekh iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari kulanka oo ka dhacay hoyga gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xildhibaanada soo xaadiray waxa isku jireen wasiiro ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxaa diiradda lagu saaray sidii loo mideyn lahaa aragtida xildhibaanada laga soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya si dawladda federaalka Soomaaliya ay uga hadlaan ulana hortagaan aragti midaysan oo la xiriirta si dawladda federaalka ay uga heli lahaayeen xuquuqaadka uga maqan maamulka Koonfur Galbeed oo ay matalayaan kulanka waxaa ka dhex muuqday gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo dawladda federaalka Soomaaliya loo arko in xurguf siyaasadeed ay kala dhaxayso kulanku inta uu socday ayaa waxa dhinacyadu isku raaceen in wixii khilaaf ah iyo tabashooyin ah xildhibaanada dhexdooda ah isla markaana xilligan jira in meesha laga saaro lana qaato aragti midaysan oo lagu matalo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyihii hore ayaa xildhibaanada u soo jeediyay in xilligan ay muhiim tahay in aragti midaysan ay qaataan xildhibaanada laga soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya si ay u wajahaan siyaasadda hadba dhinac u jeesanaysa ee dawladda federaalka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax lala beegsaday taliyihii ciidamada Puntland ee buraleyda galgala ee gobolka Bari taliyaha ayaa lagu weeraray hoyga uu ka degan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland halka oo la sheegay in lagu weeraray qaraxa guriga geeskiisa la dhigay magaalada Boosaaso ayaa aad looga maqlay qaraxani ka dhacay guriga taliyaha waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka Puntland oo baaris ku sameynaya qaraxaas iyo cidda ka dambeysay howlgal culus oo ciidamadu ay sameeyeen kana dhacay aaga guriga ayaa lagu soo qabtay tiro dad ah oo lala xiriirinayo falkaas saraakiisha amniga ee gobolka Bari wali si rasmi ah faahfaahin ugama ay dhixin khasaaraha ka dhashay qaraxaas lagu weeraray taliyihii ciidamada buraleyda galgala ee gobolka Bari kuwaas oo dagaal kula jira kooxaha al-shabaab iyo Daesh ka dagaalama buraleyda galgala ee gobolkaasi halka wararkaas daawadayaal idinkaga imaanayaan waa warbaahinta xogta wararka iminkana akhbaaraadka dibadda dawladda waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabisay gantaalada nooca ridada gaaban sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Koonfur Kuuriya Yonhap dawladda waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabisay gantaalada nooca ridada gaaban kuwaasi oo laga riday magaalada Wonsan ee dalka waqooyiga Kuuriya ridada gantaaladaas ayaa socotay intii u dhaxaysay 9 daqiiqo ilaa 27 daqiiqo xilliga subaxnimo ee dalka waqooyiga Kuuriya gantaaladan ayaa waxaa la sheegay in ridadoodu ay gaartay 70 ilaa 100 kilomitir oo ku dheeran badda wadanka Japan sida uu xaqiijiyay madaxa shaqaalaha ciidamada ee dalka Koonfur Kuuriya oo sheegay in gantaaladaasi ay ridadooda iyo dhaqdhaqaaqooda ay aad ula socdeen dhinaca kale waxa uu intaasi raaciyay sargaalkani in ciidamada Mareykanka ee ku sugan gacanka Kuuriya ay bilaabeen durbaba baaris la xiriirta gantaaladaas ay riday xukuumadda Pyongyang wajirta dhinaca kale wax war oo ka soo baxay dawladda waqooyiga Kuuriya oo ku aadan gantaaladan ay u riday jihada dalka Japan ujeedka loo riday iyo sidoo kale in ay ka mid yihiin dhoolatuskeeda military ee ku aadan
soo bandhigista awoodeeda dhinaca gantaalada iyo nuclearka kadib markii ay burbureen wada hadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Waqooyiga Kooriya. xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Kim Jong Un ayaa horey waxay u tijaabisay gantaal nooca ridada dheer ah. gantaalada ridada gaaban kuma jirin saameynna kuma lahan cunaqabataynta hubka nuclearka ee saaran wadanka Waqooyiga Kooriya, waxaana la filayaa in dalalka Japan iyo Mareykanka ay durbaba ka falceliyaan gantaaladaas ay tijaabisay.